waxaan maanta halkan oo ay bishu tahay 17kii bishii koowaad 2017 aan ka bixinayaa waxqabad sanadeedkii maxkamadda degmada Hargeysa 2016 waxyaabihii u qabsoomay ee hawshii ay soo qabatay dadweynaha ee u soo adeegtay kiisaskii ka dhacay oo iskugu jira kiisas madaniya iyo kiisas ciqaaba iyo cadaymihii ay maxkamadda degmada Hargeysa samaysay iyo dakhligii soo galay maxay higsanaysaa mustaqbalka maxaa u qabsoomay maxaa ay soo qabatay maanta ayaan doonayaa halkan inaan warbixintii waxqabad ee 2016 aan si kooban halkan uga sheego maxkamadda degmada Hargeysa 2016 warbixinta dacwadaha ciqaabta iyo madaniga ah ee soo galay maxkamadda degmada Hargeysa waxa ay kala ahaayeen sidan dacwadaha ciqaabta ee soo galay waxa ay ahaayeen 1,035 dacwadood oo ciqaab ah marka lagu daro آخرkii December inta dacwadooda kale ku darsantay waxa ay noqotay guud ahaan 1,165 dacwadood oo ciqaab ah ayaa soo galay maxkamadda degmada Hargeysa oo ay ka garqaatay oo ay dhamaysay waxaana u kala qaybsamayeen faahfaahintoodu sidan hoos ku qoran dacwadaha diincayga ah ama dacwadaha ciqaabta ah ee diincayga ah ee lagu aflagaadooday Ilaahay lagu aflagaadooday diinta lagu aflagaadooday nabiga waxay ahaayeen iyagoo aan xumaan lahayn xumaanna ka nasahan dadka afku ka xumaaday waxay ahaayeen 150 kiis oo qodobka 313 ee xeerka ciqaabta guud lagu soo oogay dhammaantoodna waa ay dhamaadeen oo hal kiis oo qadiyo ka ma jiro dacwadaha loo yaqaano waalid caasiga ee soo galay maxkamadda degmada Hargeysa ee lagu soo eedeeyay qodobka 313 faqradda 3 ee xeer number 51 waxay ahaayeen 183 dacwadood dadkaas oo ah dadka loo yaqaano waalid caasiga ama loo yaqaano xagga shariicada islaamka caaqul waalideynka ama caasul waalideynka 183 dacwadood ayaa soo galay maxkamadda degmada Hargeysa dhammaantoodna sanadkii 2016 dhammaantoodna way dhamaadeen dacwadaha isticmaalka daroogada ama yaro casaana isagoo sita ama xabag ama isbiirtay yaro caagad ku jirta la soo qabtay wixii aan baayac mushtar ahayn ee maxkamadda degmada la hor keenay waxa ahaayeen 153 dacwadood oo daraagiskii ka dhacay magaalada Hargeysa dhammaantoodna waa ay dhamaadeen dhaawacyada fudud ee bulshadu ay isu geysatay dacwadaha ciqaabta ee qodobka 440 paragraph 1 ee xeerka ciqaabta guud waxa soo galay maxkamadda degmada Hargeysa sanadkii 2016 312 dacwadood dhammaantoodba dacwadahaasi waa ay dhamaadeen dacwadaha loo yaqaano farasaarka ama 439 ee xeerka ciqaabta guud farasaarkii dadka ku dhex maray magaalada Hargeysa waxay ahaayeen 54 dacwadood oo maxkamadda degmadu ay ka garnaqday dhammaantoodna dacwadahaasi waa ay dhamaadeen dacwadaha loo yaqaano cayda lafjabka ah ama 451 xeerka ciqaabta guud lagu soo oogay ee maxkamadda degmada soo galay waxa ahayn 44 dacwadood
dhammaantoodna dacwadahaasi way dhammaadeen dacwadaha tahdiidda ama hanjabaadda dadweynaha dhex maray magaalada Hargeysa waxaa maxkamadda soo galay 100 dacwadood oo qodobka 468 paragraph 1 ee xeerka ciqaabta guud lagu soo eedeeyay dhammaantoodna dacwadaha maxkamaddu waa ka garnaqday 100ka dacwadoodna way dhammaadeen dacwadaha ciqaabta ee soo galay maxkamadda degmada Hargeysa waxa kaloo kamid ahaa damage property-ga ama waxa loo yaqaan khasaaraha 491 xeerka ciqaabta guud maxkamadda degmadu waxa ay ka garnaqday 123 dacwadood dhammaantoodna way dhammaadeen qodobka loo yaqaano tahriibta ama dadkii ku gafay xeerka socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa maxkamadda degmadu ay qaaday 20 dacwadood ee xeer number 72 public 1995 dadkaas waxa ay biliisku ku soo qabteen 20 baabuur oo nooha ah dhammaantoodna waxa ay ka soo galeen xagga wajaale nagaga yimaadeen dadkii la qabtay ee la mastaafuriyay maxkamadda degmadu ay mastaafurisay waxa iskugu jireen rag iyo dumar waxaanay kala ahaayeen sidan guud ahaan 150 qof bay ahaayeen oo baabuurtaasi ay siday 18 dumar bay ahaayeen Ethiopiana ama dalkan aynu dariskana Ethiopia ka yimi oo doonayay inay Soomaaliland si dhex maraan iyagoo ruqsad iyo fasax toona aanu haysan biliiskaana gacanta ku qabtay maxkamadda degmadaana la hor keenay oo xeerka qaadidiisa awood u leh dumarku waxa ahayd 18 dumar ah raguna waxa ahayd 132 nin oo dhammaantood Ethiopian ah 20kii baabuur iyo dadkii ay sideenba maxkamaddu waxa ay ka gaadhay go'aan dacwadahaasina 20 dacwadood bay ahaayeen waanay dhammaadeen waxaana kamid ahaa nin Soomaaliya oo isaguna sharci darro dalka ku soo galay isagoo ay sidee Juba Airways diyaaradda loo yaqaana waxaana lagu qabtay airportka isagoo sifo sharci darro ah dalka ku soo galay sidaas baana si ay dhida loogu soo wareejiyay sidaas baana kiiskiisa lagu baaray sidaas baana maxkamaddu go'aan ay uga gaadhay ninkaas oo geyiga Soomaaliya u dhashay oo la iskugu daray xarig iyo ciqaab dalkana laga mastaafuriyay dadka tahriibta iyo kiisaska tahriibta ee soo maray maxkamadda degmadu dhammaantoodna way dhamaadeen 20ka kiis go'aan baaray maxkamaddu ka gaadhay waxa kaloo jira kiisas uguba oo ku cusbaa geyiga Soomaaliland oo maxkamadda degmadu ay qaaday hormoodna ay uga tahay dhammaan Somaliland dhammaan Soomaaliya dhammaan Afrika oo aan hore loo qaadin waxaanu ahaa dhiigan loo yaqaan hidisidaha ama DNA-ga kiiskii u horeeyay ee maxkamadda degmadu ay qaaday waxa uu ahaa kiis taariikhi ah waxaana maxkamadda keenay gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadan Xaaji Cali Axmed isagoo kormeer ku jira oo maraya gobolada bariga ayuu Cergaabo kula kulmay sidaas baanu halkan ku keenay kiiskaasna uu gacanta iga geliyay ikhtisaaska maxkamadda degmadana uu ka dhigay iyadoo laga keenay gobolka kale ilmahaas oo laba aabba iyo laba hooyaba ay lahayn annaga dhalnay waxaana kiiskii galay maxkamadda degmada waxaana maxkamaddu adeegsatay technician ama farsamo yaqaan dadkii aqoonta u lahaa maxaa yeelay Ilaahay baa yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun weydiiya dadka aqoonta u leh wixii aydan garanayn marka xaakimku uu adeegsan kara wixii technician ah oo xeerkaas siinaya haday noqoto guddi farsamo haday noqoto dhaqaatiirta haddii ay noqoto injineerada dhammaan wixii cadaaladda lagu sugayo awood buu garsooruhu u leeyahay inuu adeegsado hawshaana waxay kala qayb qaatay oo hawshoodii gutay waajibaadkoodii qaran gutay agaasimaha guud ee cisbitaalka Hargeysa Axmed Askar iyo Axmed Xaash Oday oo isna ahaa laboratory-ga dhakhtarka ninkii uu ahaa gudoomiyaha ama loo xil saaray halka
labadaas oo iyagu waajibaadkooda qaran gudanaya ayaa igala shaqeeyay DNA-gina u diray Nairobi natiijadii dambe ee maxkamadda go'aankeedii ay gaadhayna qaybta ka qayb qaatay oo qaybtii maaragtay maxkamaddu awoodeedii iyo go'aankii ay sheegtayba dee ay u cuskatay sidaa darteed wuxuu ahaa kiiskii u horreeyey kiiskii labaadna isaguna wuxuu ka dhacay baa laygu yidhi Sanaag gobolkan Maroodijeexna kiisaska DNA-ga soo maray kii saddexaad natiijadii ma kay maqan tahay oo la sugaya isagana saddexda kiis baa soo maray ayaa filayay imika gayigan Somaliland oo maxkamadan degmaduna ay hormood ka ahayd de khayrkana qof baa bilaaba de intii dambe samaysayna waxa weeyaan man sanna sunnatan hasana falahu ajraha wa ajru mithlu fa'iliha kiisaskii cusbaa bay ahaayeen ee gayiga ku cusbaa maxkamadan degmaduna falillahi alhamdu waxa weeyaan mid la sugayo iyo qaar dhamaadayba halkiisunbaa ka noolo imika la sugayaa natiijadiisii kiisaska maxkamaddu ay gashay ee ku ugubka ahaa maxkamadda degmada iyo dhammaanba maxkamadaha dalka ayuu kiiskaasina ka mid ahaa waxaa kaloo jiray kiisas kale oo maxkamadan awood u leedahay oo loo yaqaano shiidka oo 526 ee xeerka ciqaabta guud waxa soo maray qoysas shiiday 14 dacwadood oo maxkamaddu ay ka garnaqday dhammaantoodna way dhamaadeen jira qodobka loo yaqaano 405 ee xeerka ciqaabta guud ama isu tag aan sharci ahayn waxa soo maray laba kiis labada kiisba waa dhamaadeen oo maxkamaddu go'aan bay ka gaadhay guud ahaan marka la isku geeyo ciqaabta soo gashay maxkamadda degmada sanadkii 2016 ee dhamaaday waa 1165 dacwadood falillahi alhamdu waana dhamaadeen warbixinta labaad ee ku xigtaa waxa weeyaan dacwadaha madaniga ah ama kiisaskii madaniga ah ee 2016 maxkamadda degmada soo maray kiisaska maxkamadda degmadu ay ka qarqaaday madaniga ah guud ahaan waxa ahaayeen 2492 dacwadood waxaana u kala qaybsamayeen sidan hoos ku qoran dacwadaha qoyska ah ama khilaafka qoyska ah ee soo maray maxkamadda degmada ee dhamaaday waxa weeyaan 1100 dacwadood waxaana soo galay 1376 oo laga garnaqay dacwadaha fasaqaada ee soo galay maxkamadda degmada ee iyaguna dhamaaday waxa weeyaan 180 dacwadood dacwadaha la isku fasaqaada waxa ku xigay dafiraada uurka ama gabadh la wareeyay oo lagu dafiray uurkii waxa soo galay dacwadaha 19 dacwadood dacwadaha la isku khilaafsan yahay meherka waxa soo galay 9 dacwadood dacwadaha loo yaqaan laba guurka waxa soo galay 6 dacwadood maxkamadda degmada guri diida ama dacwadaha loo yaqaan naashisada dumar guryahoodii diiday iyo qoysaskoodii inay dhaqdaan oo guryahoodii ka cararay sifo sharci darraan uga baxay waxa soo galay 14 dacwadood caruurta lagu muransan yahay masaariiftooda dacwadaha soo galay madaniga waxa 140 dacwadood dacwadaha dhaxalka ee soo galay maxkamadda degmada waxa ahayn 100 dacwadood dacwadaha guri ka saaridii waxa ahayn 290 dacwadood dacwadaha xaqitaanka ama waxyaalaha dhaawaca la isku geystay dhaawacaas ama gaadhay ka yimaado ama dad gacantii ka yimaado waxa ahayn 210 dacwadood dacwadaha qaan sheegadkiina waxa ahayn 122 dacwadood dhammaan dacwadahaasi waa ay dhamaadeen waxa kaloo jira dacwadahan waxa ka dhashay madaniga fulinta ka dhalatay ee maxkamadaas ama noqoto xukun ama qaraar ama heshiis waxa ay u kala qaybsamayeen sidan fulimada xukunka bislaaday ee ka bislaaday maxkamadda degmada Hargeysa ee aan rifcaan laga qaadan ama maxkamadda rifcaankuba ay soo celisay ee halka ku dhamaaday ama maxkamadda sare ka soo noqday waxa ahaayeen 280 dacwadood fulinada qaraarada waxay ahaayeen 250 dacwadood fulimada heshiisyada dadweynuhu ay suuqa ku heshiiyaan ee heshiiskii taraf ka baxo
اختصاص كمحكمة الدقمة إلا 6 مليون كيرا وحيها سقالي لحظة دعوتها سنوات دعوته مدنية يقيبها يوكل بحيين لما أن دعوتها الله بكوني لحظة طبعا واي نقد أمادين وهو وح تدوينه هذيك اللو بعنا أي هلان ولوفلي وحكلو ترى وحيابو أي سميسو محكمة الدقمة waa hawl maamul hawlaha maamulku waxay u qaybsamayaan sidan soo socota noocyada adeega ay qabatay maxkamadda degmadu waxa kamid ah caruuraha agoomaha ee 2016 ay geysay maxkamaddu xarunta agoomaha waxay ahaayeen 180 kiis oo dhacay oo dadkii meelaha lagu tuuray ahaa kadibna daryeelkoodii dawladda ayaa ka mas'uula sida uu sheegay qodobka 19 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland cid kastoo dayacan waxa ka mas'uula dawladda biliiska ayaa soo qaaday deetana sidaas ay maxkamadda ugu soo gudbiyeen markii ay baaritaan ay sameeyeen xeerlaalinta soo mariyeen maxkamadda la keenay ilmaha in la tuuray ilmaha siinaanu aabiyo hooyo toona lahayn maragidii la qaaday markii ay maxkamaddu ku qanacday waxa ay u gudbisay si ilmahaas uu daryeel u helo iyo nolol ku dhisan farxad oo noloshii waalidka uu helo xarunta loogu tala galay agoomaha halkaas baa loo gudbiyay oo xanaanadooda ay ku qaateen oo ay ku heleen waxaana ahaayeen 180 kiis oo dhamaaday oo dhammaantoodba dadkii lagu daryeelayo xarunta agoomaha dawladuna ay gacanta ku hayso waxa kaloo ay maxkamaddan qabataa hantida maguurtada ah waqtigii dawladda Soomaaliya laga soo noqday dhammaan dadka ma wada haystaan dokumentiga hantidooda ay ku cadeysan laayeen sida darteed dadkii ay hantidu ka lumeen si aan qof kale hantidu u qaadan cadeynta maxkamaddu procedure bay u martaa deetana marka loo cadeeyo barobertiga in qofkaasi leeyahay laba mulkiile oo barobertiga la cadeynayo ama hantidan la cadeynayo hanti kale ka badan leh ayaa ku dhaartay maxkamadda horteeda kadibna waxa loo aqoonsadaa in qofkaasi hantida leeyahay sidaas baana maxkamaddu cadeyn ugu samaysaa si haddii qofkaasi yeelan waayo labada mulkiile damiinka ah hantidooda loo xidho ee ka badan hantida ay cadeeyeen kiisaska cadeymaha hantida maguurtada ah waxa soo maray maxkamaddan oo ay samaysay 356 cadeymood oo ah hanti maguurta ah oo magaalada dhexdeeda guryaha ku yaala cadeymaha guud ee soo galay maxkamaddu waxa weeyaan 419 maxkamaddu waxa ay cadeysay nikaax oo ka dhacay magaalada Hargeysa intii maxkamadda timay ama intii maaduumiintu ay u soo meheriyeen ee maxkamadda keeneen ee maxkamaddu ay aqoonsatay loo sameeyay xaashida cadeynta nikaax ama guurka waxa ay 307